subaxnimadii 8 bishii 6 sannadkii 1914 magaalada Sarajevo ee caasimadda dalka Bosniya waxaa soo gaaray tareen ay saarnaayeen dhaxal sugihii boqortooyada Austria oo la oran jiray Franz Ferdinand iyo xaaskiisa Sophie. Xilligaasi Bosniya waxay ku hoos jirtay gumaystihii Austria. Markii ay ka soo degeen tareenka waxay raaceen gawaari loo diyaariyey waxayna dhex mareen dadweynihii isugu soo baxay soo dhoweynta dhaxal sugaha. laakiin gudaha dadkaas waxaa ku jiray wiil dhalinyaro ah oo la oran jiray Kafrelo Princip iyo 5 saaxiibadii ah. halkaani waa faalo waa bari ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta waxa idin la socodsiinaya anigoo ah diiriye inta aynan u guda gelin muuqaalkeena maanta fadlan like saar mahadsanid. ujeedkoodu wuxuu ahaa inay shirqoolaan dhaxal sugaha iyo xaaskiisa iyagoo isku kala qaybiyey wadadii ay marayeen gawaaridii galbinaysay. isku daygoodii ugu horreeyay ee dilka ah wuu fashilmay waxaana dhacay orod iyo buuq badan. darawalkii gaariga dhaxal sugaha oo nafla caari ahaa isagoo raadinayay waddo amni ah ayaa si kedis ah uga soo horbaxay Kafrelo Princip. isaga oo bastoolad sita ayuu si toos ah ugu dhuftay dhaxal sugihii iyo xaaskiisa halkaasna ku dilay. shirqoolkan ayaa noqday bilowgii dagaal weyn oo taariikhda lagu xusuusto. dagaal ay reer galbeedku ku sumeeyeen dagaalkii koowaad ee adduunka. waxaa ka qayb galay in ka badan 70 milyan oo askari waxaana lagu dilay ku dhowaad 40 milyan oo qof. dagaal socday 4 sano oo xiriir ah kaas oo bedelay adduunka oo dhan inkasta oo sababta tooska ah ee dagaalka ay ahayd shirqoolka dhaxal sugaha. haddana waxaa jiray sababo kale oo muddo dheer isa soo biirayay. hifaltan xooggan oo ka dhex jiray dalalka Yurub gaar ahaan dowladaha Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga oo ku lolamayay gumaysiga Afrika, Ruushka iyo dowladdii Cusmaaniyiinta oo dhinac kale loolan ka dhex taagnaa iyo sababo kale oo badan ayaa dedejiyey in shirqoolkani isu beddelo dagaal lagu wada hoobto. kadib markii la shirqoolay dhaxal sugihii boqortooyada Austria, boqortooyadii Austria ayaa digniin kama dambays ah u dirtay dalka Serbiya 23 bishii 7 sannadkii 1914. 10 qodob oo ay Austria u dirtay Serbiya ayaa duldhigay amar ah in lagu soo ogolaado 48 saac gudahood. inkasta oo Serbiya ay aqbashay inta badan qodobadaas haddana boqortooyada Austria ma aysan ku qancin waxayna ka soo qaaday in Serbiya ay diiday dalabkeeda 82 bishii 7 isla sanadkaas. Austria si rasmi ah ayay ugu dhawaaqday dagaal ka dhan ah Serbiya. waantii la dhex waday labada dhinacna guuldarro ayay ku dhammaatay. ku dhawaaqidda dagaalka ee Austria ayaa bilow u noqotay iskashan buuraysi dhex mara dalalkii xulafada la ahaa labada dhinac. Ruushka ayaa isla markiiba shaaciyey inuu garab taagan yahay Serbiya wuxuuna iclaamiyey dagaal ka dhan ah Austria. Ruushku xilligaas wuxuu dagaalkan ka dhex arkay maslaxad siyaasadeed oo uu ku doonayay inuu gacanta ku dhigo marin biyoodyada muhiimka ah ee ay Austria maamulaysay. dhanka kale waxaa jiray iska horimaad siyaasadeed oo u dhexeeyey Ruushka iyo Jarmalka inkasta oo qoraallo hore lagu sheegay inay xulufo ahaayeen. Jarmalka xilligaas wuxuu heshiis ciidan la lahaa dowladdii Cusmaaniyiinta halka Ruushka iyo Cusmaaniyiinta ay ahaayeen dab iyo baansiin. sidaas darteed ku biiritaanka Ruushka ee dagaalka ayaa ku qasbay Jarmalka inuu isaguna iclaamiyo dagaal 1 bishii 8 sannadkii 1914 keliya 2 maalmood kadib. Jarmalka ayaa mar kale iclaamiyey inuu dagaal ku qaaday Faransiiska. dhanka kale Ingiriiska oo ka soo horjeeday isballaarinta ay samaynayeen Jarmalka iyo Ruushka ayaa isaguna 4 bishii 8 isla sanadkaas shaaciyey inuu si rasmi ah dhinac uga yahay dagaalka. ugu dambayn boqortooyadii Austria oo ahayd tan dagaalka bilowday ayaa 6 bishii 8 sheegtay inay dagaal ku qaadayso Ruushka. markii ay dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska shaaciyeen inay iyaguna la dagaalamayaan boqortooyada Austria, dagaalkii ku bilowday laba dal ayaa isu beddelay mid ay ku soo biiraan dalal badan. waxaa loo kala qaybsamay 2 gashaan buur oo waaweyn. gashaan buurta koowaad waxaa la oran jiray ciidamadii huwanta waxayna ka koobnaayeen Faransiiska, Ingiriiska, Serbiya, Montenegro iyo Biljamka. gashaan buurta labaadna waxaa la oran jiray awoodda dhexe waxayna ka koobnaayeen dalalka Austria, Hungary, Jarmalka iyo Jabaan oo iyaduna ku soo biirtay dagaalka si ay u qabsato Shiinaha. ku biiritaanka Jabaan ayaa ka dhigtay Shiinaha inuu isaguna ku biiro gashaan buurtii koowaad ee huwanta. si uu isaga difaaco Jabaan, dowladdii Cusmaaniyiinta oo xilligaas hoggaanka u haysay muslimiinta bilowgii dagaalka dhexdhexaad ayay ahayd.
laakiin bishii 11aad waxay ku qasbanaatay inay ku biirto gashaan buurtii awoodihii dhexe maadaama dalal ka mid ah huwanta damac ka soo galay dhulkii ay xukumaysay. Isxulufowga labada gashaan buur ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhayay. dalalku waxay ugu kala biirayeen laba damac oo kala duwan, qaar damac ka lahaa inay qabsadaan dhul hor leh iyo qaar iyaguna doonayay inay helaan madax bannaani oo ay gumaystaha iska dulqaadaan. Dagaalkan wuxuu socday in ka badan 4 sano. markiisii hore wuxuu ku bilowday isqabqabsi u dhexeeya dalalka Yurub ka hor inta uusan isu beddelin dagaal caalami ah oo ay ka wada qayb qaateen inta badan dalalkii adduunka, gaar ahaan Yurub, Aasiya iyo Ameerika. waxaa lagu qiyaasaa in ku dhowaad 70 dal ay ka qayb qaateen dagaalka. dadka ku nool dalalkaas ayaa u dhigmayay kala bar dadkii ku noolaa adduunka. 10 dal oo ka mid ah 70kaas dal ayaa ahaa dalal xor ah, halka inta soo hartay ay ahaayeen dalal gumaysi ku hoos jiray. 20 dal oo keliya ayaa dhexdhexaad ka noqday dagaalka. waxaa ka qayb qaatay ku dhowaad 70 milyan oo askari, halka ku dhowaad 40 milyan oo qof ay ku dhinteen dagaalka. marxaladaha dagaalka iyo diyaar garowga dagaalku wuxuu soo maray 2 marxaladood oo kala duwan. marxaladda koowaad waxaa loo yaqaanay marxaladdii duulaanka ama weerarka, taas oo ujeeddadu ahayd in dhinacyada iska soo horjeeda ay dhulal kala qabsadaan. marxaladda labaadna waxaa loo yaqaanay marxaladdii difaacyada ama dufaysyada, taas oo ku dhisnayd in dhinac kastaa qoto godad iyo dufaysyo uu ka difaaco aagagiisa. dagaalkan waxaa la adeegsaday hubab casri ah oo xilligaas ku cusbaa dunida sida diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada. duulaankii dhanka galbeed, dagaalku wuxuu si rasmi ah uga bilaabmay dhanka galbeed 20kii bishii Agoosto sannadkii 1914. Jarmalka ayaa qaaday weerar ballaaran isagoo qabsaday caasimadda dalka Biljamka ee Brussels, wuxuuna sidoo kale u gudbay dhanka koonfureed ee dalka Faransiiska. hase yeeshee guusha Jarmalka ma noqon mid sii waartay. 6dii bishii Sebtembar, Faransiiska ayaa guul weyn kaga gaaray Jarmalka dagaalkii loo yaqaanay Dagaalkii Marne. arrintani waxay ku khasabtay Jarmalka inuu joojiyo isballaarintii uu waday, isaguna uu bilaabo inuu dhisto dufaysyo difaac ah oo ka bilowda xuduudda dalka Switzerland. dagaalkii bariga iyo burburkii Ruushka sannadkii 1915, Jarmalka iyo xulafadiisii loo yaqaanay awoodaha dhexe ayaa guulo muhiim ah ka gaaray ciidamadii huwanta. dagaalkii caanka ahaa ee Gorlisternu ayay Jarmalku kaga adkaadeen ciidamada dalka Ruushka guuldaro ay adkeed in ay ka soo kabtaan. guulahaas kadib waxay la wareegeen gacan ku haynta dalka Poland, qaybo badan oo ka mid ah dalka Lithuania. inkastoo Ruushku isku dayay inuu iska caabin sameeyo, haddana waxaa soo gaaray khasaare naf iyo maal leh. waxaa laga qabtay maxaabiis gaaraya 325,000 oo askari. ugu dambayn, ciidamada Jarmalka iyo Awstriya waxay ku fidiyeen awooddooda gobolka Balkanis, iyagoo ka tallaabay webiga Danuub si ay u burburiyaan ciidamadii dalka Serbiya, halkaas oo ay ugu geysteen khasaare aad u ballaaran. boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa door muhiim ah ku lahayd dagaalka, gaar ahaan isbahaysigii ay ka midka ahayd ee awoodaha dhexe, iyadoo gacanta ku haysay marinada biyaha ee ugu istiraatiijisana sida marinka Dardaneel iyo Basfoor. arrintan ayaa horseeday in la xiro saadkii Ruushka uga imaanayay Faransiiska iyo Ingiriiska, taas oo keentay in isbahaysigii huwanta ay ku dhawaaqaan dagaal ka dhan ah Cusmaaniyiinta si ay gacanta ugu dhigaan marinadaas. 18kii bishii 3aad sannadkii 1915 ayaa la qaaday dagaal, balse wuxuu noqday mid guul daraystay oo jab weyn loogu geystay huwanta, taas oo ku qasabtay inay dib u gurtaan dhammaadkii sannadkaas. dagaaladu waxay sii xoogaysteen sannadkii 1916, markaas oo uu dhacay dagaalkii Farduun, dagaal socday 7 bilood. halkaas ayaa markii ugu horraysay taariikhda soo baxay hub cusub oo ahaa taangiyada dagaalka. Jarmalka ayaa khasaare aad u weyn ka soo gaaray dagaaladaas, taas oo sababtay inay waayaan ciidamadoodii tababarnaa, laguna beddelo dhalinyaro aan khibrad lahayn. bishii 9aad ee sannadkii 1916, Ingiriiska wuxuu qabsaday magaalada barakaysan ee Qudus oo xilligaas muslimiintu gacanta ku hayeen. wuxuu sidoo kale qabsaday magaalooyinka Dimashq, Ximis iyo Xalab oo ka mid ahaa dalka Suuriya. sannadkaas waxa uu sidoo kale ku suntanaa in Maraykanku si rasmi ah ugu soo biiray dagaalka, inkastoo uu horay u raaci jiray siyaasad dhexdhexaadnimo ah.
Maraykanka waxaa cadaadis xooggan ku hayay Yuhuudda oo ballanqaad ka helay wasiirkii arrimaha dibadda Ingiriiska Arthur James Balfour ballanqaad ahaa in la siinayo dhulka Falastiin haddii ay dagaalka ku garab istaagaan. Arrimahaas isbiirsaday ayaa ka dhigay Koongareeska Maraykanka mid oggolaaday in ciidamadoodu ay si rasmi ah ugu biiraan dagaalka. Markii uu dalka Maraykanku ku biiray gaashaanbuurtii huwanta, dagaalku wuxuu yeeshay macno cusub. Dagaalkan oo muddo dheer soo socday, dhinacyadii ku jiray waxaa ka soo gaaray khasaare aad u baaxad weyn oo isugu jiray naf iyo hanti. Ciidamadii hore dagaalka ugu jiray oo daalay, niyadooduna aad hoos ugu dhacday, waxaa ku soo biiray ciidanka Maraykanka oo xilligaas haystay hub aad u horumarsan. Tani waxay kor u qaaday awooddii gaashaanbuurta huwanta. Dhowr dagaal oo ay ka dhasheen guulo iyo khasaarooyin kadib, Sebtembar sannadkii 1918, ciidamada Maraykanka iyo Faransiiska ayaa qaaday weerarkii ugu dambeeyey, iyagoo qabsaday jabhaddii la odhan jiray Hindenburg. Toddobaad keliya kadib, waxay mar kale galeen dagaalkii Blancmont, iyagoo ku qasbay ciidamada Jarmalka inay dib uga gurtaan xuduudda dalka Beljiyam, halka dalalka Kanada iyo Ingiriiska ay dhankooda dagaallo ka wadeen. Dagaaladan baaxadda leh waxay horseedeen in si rasmi ah u burburto gaashaanbuurtii awoodda dhexe. Dalka Bulgaariya ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee saxiixa heshiis xabad joojin ah 29kii bishii Sebtembar sannadkii 1918. Dalalkii kale ee gaashaanbuurta awoodda dhexe ayaa iyaguna mid isu dhiibay ilaa laga soo gaaray 11 bishii Noofembar isla sannadkaas. Xilligaas oo ay dhex martay dalka Jarmalka iyo gaashaanbuurta huwanta saxiixa heshiis xabad joojin ah oo soo afjaray dagaalkii layaanka ahaa. Dagaalkaas waxaa ku dhimatay 8 milyan iyo nus oo askari, halka dhaawacu uu kor u dhaafay 20 milyan. Waxaa sidoo kale la dilay ku dhowaad 13 milyan oo dad rayid ah. Isugeyn dadka ku waxyeeloobay dagaalka waxay ahaayeen qiyaastii 29 milyan oo qof, isugu jira ciidan iyo shacab. Dalka Serbiya ayaa noqday dalka ugu khasaaraha badnaa dhanka ciidamada, maadaama uu waayay 3 meelood 4 meel oo ciidankiisii ah. Halka 20 milyan oo qof ay ku barakaceen nolol aad u hoosaysa, iyo 10 milyan oo kalena ay ku qaxeen qaaradda Yurub gudaheeda.